isla magaalada Addis Ababa xarunta wadanka Itoobiya ayaa arbacadii maanta ahayd galabnimadii waxa lagaga dhawaaqay heshiis hordhaca oo wada jir ay u gaadheen Somaliland iyo Khaatumo oo dhowrkii maalmood ee tagay halkaasi wada hadal ay uga socdeen. haddaba heshiiskan ayaa qodobada uu ka kooban yahay. marka hore waxaanu idin ka haynaa warbixintan oo noo soo diray wariyahayaga Najiib Cabdiweli Xiis oo jooga magaalada Hargeysa. bisha December ay ahayd markii magaalada Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya uu shir uga furmay xukuumadda Somaliland iyo maamulka Khaatumo. shirkaas oo ku bilowday jawi degan ayaa maanta ku soo gabagaboobay jawi degan, waxaana laga soo saaray 12 qodob ay ka mid ahaayeen in wada hadallo iyo wada xaajood lagu dhameeyo khilaaf kasta oo jira, in wixii fadqalalo iyo dacaayad gudaha ah meel looga soo wada jeesto ee dhaawac ku keeni kara wada hadallada maamulka Khaatumo iyo xukuumadda Somaliland, in meel looga soo wada jeesto wax gacan saddexaad oo faragelin ku sameyn kara wada hadallada bilowga ah, in laga wada xaajoodo wixii ku saabsan dhiig iyo dhaqanba, in laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada, in ciidamada Somaliland ku sugan gudaha gobolada Sool, Sanaag, Bari iyo Buuhoodle dib loo qorsheeyo joogitaankooda iyadoona la tixgelinayo mar walba baahiyaha iyo xaaladda nabadgelyo iyo tan siyaasadeed ka jirta deegaanadaasi, in aan la qorin ciidamo beeleedyo cusub inta wada hadalladu ay socdaan, in maamul daadejin buuxda la sameeyo oo taabanaysa dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, maamulka arrimaha bulshada iyo nabadgelyada, in wada jir looga wada howlgalo sidii mashaariic waaweyn oo horumarin ah looga hirgelin lahaa goboladaasi, in la iska kaashado sidii gargaar loogu raadin lahaa loona gaarsiin lahaa dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay abaaruhu ka jiraan, in hay'adaha samafalka ee caalamiga ah iyo kuwa qaramada midow ay ka howlgalaan kana qaadaan xayiraadda goboladaasi. warqadda heshiiskan oo ay ku kala saxeynayeen gudoomiyaha wafdiga Somaliland oo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah Dr. Sacad Ali Shire, halka Khaatumo uu saxeexay gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar. Najiib Cabdiweli Xiis, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Hargeysa. haddaba wakiilada dhinaca Somaliland ku metelaya wada hadalladaasi ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe. goor dhaweed mar khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa kula hadlay ayaa ugu horeyntii waxaan weydiiyay maadaama lagu heshiiyey in bisha February la isugu yimaado kulan kale in la oran karayo heshiiskani waa mid hordhaca iyo in kale. heshiiska alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ma hadle waa furihii heshiis ballaaran oo la galo. hadda wax Allah wax turunturoonka dambena hor yaala ma jiro hadii la yiraahdo waa turunturooyinkii magaalada Saayay si loo heli lahaa heshiis buuxa oo waara oo ummadda u dana si loo gaaro waa turunturooyinkiiba hadda aan ka qaadna meesha hadda la yiraahdo. halkaas markaa waxay wadadu way noo furantay insha Allah ta'ala lagu gaariyo khayrkii nabadda. marka qodobada ugu waaweynaa ku raagteen ama waqtiga badan idin ka qaatay heshiiska maxaa ka mid ahaa? waxa weeyaan Somaliland wixii budmadu dhan ummadda walaalaha ilaahay iska baday in laga saaro budmadu waa nabadeeda iyo laga shaqeeyo midnimadeeda laga shaqeeyo wixii tabasho ah hadhow dib loo dhigo la hagaajiyo laga heshiiyo weeye. ciidamada imaka jooga halkaas dhulkaas oo unrest ahaayo qulqulatooyin ka jirayna iyagana kolba soo la eegiyo nabadgelyada aagaas ee tahay tartiib iyagana ay fadhiisamada ku soo noqdaan ayaa ugu waaweyn. ciidamada Faysal waxa tiri waxa ku heshiiseen si tallaabo loo soo qaado marka dambe loo arko in nabadgelyadu ay saamaxayso ciidamada waa laga soo wada qaadaya miya? ciidamadu meelana waa wadanka dhaxiisiyo meelana waa saldhigyadooda waa u sax gobolka aaga meelana waa meel loo geeyo qulqulatooyin ka taagsan darkeen geeyo Taleex iyo Buuhoodle iyo meesha la yiraahdo magaalada Saaceel Afweyn iyo waxa loo geeyay wax iska hor yimid beeraha iska hor yimid dagaalada tribal fighting qabaa'il iska hor yimid baa loo geeyay Taleex oo kale darkeen geeyo kale. kulanka labaad marka ee aad sheegtay bisha February inuu qabsoomayo ma ku heshiiseen xaq ka dhacayo?
laba meelood baan jecel insha Allah taala ma wadanka Ethiopia amba wadanka Imaaraadka ayaan labada meelood baan jecel mid ka dhacay insha Allah marka haddii heshiiskan hordhaca gaadheen oo imika xaalkii hoos oo dhan la dhameeyey maxaa gudaha shirka labaad ugu qaban weydeen والله وان جعلنا بوه لحتى كو قبلنا جعلنا الحمد لله رب العالمين لكن قولنا مغانا ساي خاتم ايا جعلاتي marka adu qola khaatumaad jeclaatay markaasa iyaga ku ixtiraamay oo aan ogolaanay anaguna gudoomiye Faysal intii wada hadaladani aanay bilaabmin waxa muddo dheer gorgortan uu ka taagnaa qaabka loo wada hadlayo oo khaatumana ay doonayeen laba maamul oo siman inay ku wada hadashaan idinkuna aan lahaydeen waa arrin gudaha oo Soomaaliland u dhaxaysa oo maamulkii iyo dad shicib ah u dhigayseen oo khilaafu ka dhaxeeyo imika sidee baa ku shiraysaan muxuu yahay wajigan ay isku hor fadhiisateen ana waxa weeye dad walaala dadkani Soomaalilandna laba state ma jiraan hal state baa ka jirta oo adduunka oo dhan yaqaan de facto state marka waxay doonaan waxa sheegteen walaaladii laakiin waxaan dad family isqabsataan waa family conflict way arintani maamulays ay ma jiro waa family conflict waanu ka heshiinaynaa magac doonta la isku yeero laakiin waa hal family baan nahay marka ma waxaad leedahay maamulkii khaatumo imika way ka tanaasuleen sida hadalkaaga ka muuqata ma yaanu kuma way ka tanaasuleen waxaan ku yiri waxay doonta ha sheegteen waxaan nahay waa dad walaalo oo is wada garanaya magac doonaa ha siteen amba aan sidano arinteedu waa family problem bay ahayd family conflict buu ahaa magac doonaha la isku yeero isfahamnayna wax khilaaf naga yimina ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin marka taas substance aan ka hadlaa wixii nuxurka lahaa ka hadlanaay magacu micna ma leh marka wada hadallada wareegga labaad ee bisha February madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha maamulka Khaatumo ma idin kala soo qayb galayaan adu gudi baanu sameynaa 10 cisho gudaheeda oo labada dhinac ah oo join wada shaqeyso ka soo wada shaqeysay shirka dambe sidoo u dhacayo iyagana ka warsugi doona insha Allah taala waxay soo gudbiyaan Faysal sida laga wada warhayo ilaa 19 markii Soomaaliland lagu dhawaaqay dhibaatadan deegaamada Khaatumo ay imika ka taliyaan ka jirtaa way soo taagneyd marba waji ay lahaydba ma oran karaysaa heshiiskani wuxuu bilow u noqonayaa in dhibaatada imika laga gudbayo arinta maanta dhacday waxay soo afjaraysaa wax alaay wax khilaaf taagnaa amba bilaabno 2012 oo sabeysantay Khaatumo amba intii ka horeysay SSE mid la ilaahay jirtay amba intii ka horeysay adu ay jirtay magaalada Saay Suluk ka jiray dadka deegaankaasa waxaan filayaa in arintani soo afjaraysa insha Allah taala waxaan ku xigsiin doonaa insha Allah taala iyadana sanaagta bari beelaha dega inaan ku xigsiin doonaa waxaan jecel insha Allah taala Soomaaliland midaysan oo dalkooda la kala sheegeen marka Faysal adigu waxa tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid wada hadaladan imika waad ka qayb gashay sida laga warhayo xisbiga kale ee wadan iyagu kuma jiraan wada hadaladii DB weel la galayay Imaaraadkana waad ka qayb gashay bariyahan xambaa jirtay oranaysa Faysal xagga dawladdu u badan yahay marka arintani ma muujinaysaa arinta la sheegayo anigu horta waa mid keep DB kama qayb galin waan anoo meesha shiru jooga ayaan la kulmay oo waan la kulmay saaxiib ma la kulmay laakiin waxaan ku sheegay kan Khaatumaha ka shaqeeyay wax aad waqtigan ka shaqeeyay dawladdu xitaa kama interesaareen ilaa 2012 tadinki ma ka shaqeynayay meesha looma eegin xusbi la'aan waxa loo eegay shakhsiyaad iyo wax ka tari kara wada hadalada iyo wax ka hadlay waxa ku jira awil baa ku jira oo xusbina ahayn ambassador awil baa ku jira xusbina ahayn labadiyada laakiin awil waa la taliyaha madaxweynaha imika Soomaa madaxweynaha laakiin 720 waxa jira la taliyaha madaxweyne la xusbi ahaan la igama keenin awilna taliyahan looma keenin la taliyaha madaxweyne waliya arinta wax ka qaban karaya oo experience leh oo waxaan fahmiyaa oo wax ka tari kara iyana loo soo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland oo goor dhaweydii ugu waramayay khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa